wixii shalay lagu dhiibtay waxa adiga malihid waa lagu dhiibtay sababta adduunka waxaad ka tahay safar waxaa ku taagan ticket baa lagu goynaya maalin maalmaha kamida adoon walba u haynin shaqadaada ku guda jira waqtigaaga soo dhamaanaya ha ku yaqyaqsanin hadhihin qofka heblay meel shaqaysata hadhihin meel yeesha hadhihin gacmo naxariis leh qalbi naxariis leh indha naxariis lagu fiiri u naxariiso saad ugu naxariisato ilaahayna wuu kugu naxariisanaya laakiin haddaad ku yaqnaq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووراشي نجح علي ودن لا إسسو نقد وناكسن واندين حيصي وكما تنتين سيدا قروح دبضان ودي ليش رجلسين لايك شير كومنت وحقين أو هايدي هايا فرها قوشة معهم وح ulays ama dhib ah waa wax yaro easy ah oo fudud haddii aad u tala gasho inaad gaarto allahaagana uu kuu saqiro waad gaaraysaa furaha guusha maanta waad soo kacday waxaad tiri waxaan doonayaa inaan shaqo aado oon shaqaysto saas markaa tiri qof ayaa saragteen waxaa tiri waxaan rabaa shaqada noocaasa inaan ka shaqeeyo qofku waxay ku tiri shaqo noocaasa ha ka shaqeyni waxba kaa soo geli maaye iska dhaaf adigana hadalladeedii aad la dhacday waad qaadatay ha yeelin saas qofku ma ogo wax kaa soo gelaayo ma ahan uurku baalle iyadoo war uma hayso allahu aclam ilaah baa og adiga ku kalsoonow naftaada aad ugu soo baxday inaad shaqadaas aado aad shaqadaada allahaga tala saaro qalbiga ku hay inaad guul gaarayso qalbiga ku hay inaad yacni hadafkaaga ka miro dhali karto qalbiga ku hay inaad furaha guusha gacanta ku dhigtay haddii aad yeesho qofkaas arrimaha ay kuu sheegtay xasiloonidaadii kalsoonidaadii waddadii aad saareeday waad ka dhaadhacday ku qabo allahaada kalsooni ku qabo naftaada kalsooni dhammaystiran ha ka leexanin waddadii aad soo qaaday ku soco waddadii aad saaka martay waxaad arkaysaa qof u socoto meel ayaa qofka ka hor imaanaysa waxaa leedahay meeshaas aadin iska dhaaf ka noqo qofkii ayadoon meesha tegin wax ka jira aana ogaanin ayay meesha ka dhaqatay ha yeelin tag ogow waxaad kala soo kulmayso ogow warto guul iyo guul darro waxaad kala soo kulmayso ogow yaan lagaaga sheekaynin teeda kale waxaa jira dadku waxay dhahaan shaayaad soo iibsatay maanta qofaad saragteen waxay ku tiri shaygan wuu foolxun yahay qab kalsoonidii aad shaay kusoo iibsatay hayso yacni shalay markaad soo iibsanaysay kalsoonigii niyadaad helay hayse niyadaadii hayse kalsoonidaadii maanta oo kale waxaad rabtaa inaad safar gasho qofka ku dhahaysa may iska dhaaf laa ha ka yeelin aad meesha aad hambisay hamigaaga gaar iyo hadafkaaga ha ka noqnoqonin allahaaga tala saaro hadafkaaga ku adadkaaw ha naqanin qof hadafkeeda ka wacwacda qof ahow mayl adag ku adag wixii ay markaas ay rabto inay ka miro dhaliso ku adag ha naqanin qof looga sheekeeyo hadafkeeda iyo waqtigeeda lala qaybsado markaad noqoto qof xasilooni ku jirta qof habi ku jirta waxaad noqonaysaa qof leh cadow badan soomaali waxay dhahdaa cadowgaaga
caana macaan la siiyaa. hana qanin qof ku tiirta cadawgeeda ka aarsata tiraaha shalay oo saas ku yeelay shalay oo saas ku yeelay oo fari qalbi furan niyad furan gacmo furan soo dhaweey ha u soo qabanin kii shalay hadalkii shalay wixii shalay oo ka hadiyay maanta ha u soo qaban iska dhaaf kor u bax ka dhig waxaadan ogeyn qofaana ogeyn iska dhig ooba war iyo waayaba u hayno wuxuu qaadiyay adoo og wax walba casis u fidi saad u cafiso ilaahayna wuu ku cafinayaa. laakiin haddaad tahay qof uu ku qaad badan qof uu dad badan qof mar walba waxay ahayd tiraa qofta hebleeyaasaan yeeshay la hadafkaaga ma aadan gaarin. maanta qofti shalay ku yeeshay saas aad ogeeday haddana aad gacmo furan kusoo dhaweysay berri ayadaa isku xishoonaysa ayadaa isla yaabaysa dhahaysa qofkan saan u fiican shalay wixii dhan aad ka hadlaysa shalay aanaba kuu soo qabanin qofkan dhibaato dambo ha u geysan. qofku waxay jeceshahay inay hore kuu tuurto mar walba. haddaad taraanturooto isceli ha isku halaynin qof bini aadina haddaad inta wax uga darsato wixii iyadoo kuugu maqan wixii ay kuu keento alxamdulilah. hadday kuu keeni weyso rabbilcaalamiin adiga heblaaya ii keeni weysa hadhiin doono kartidaada awooddaada ilaahay ku siiyey ku doono aqligaagu ku shaqaysa aqligaaga ku shaqayso. maanta shaqaalaad tahay shaqaala haddaad tahay qofka aad u shaqayso waxow qof firfircoon qof daacad ah qof qalbi daacad qof sidii loogu talagalo u shaqayso hagaru aysan ku jirin ugu talagashay shaqadeeda inay si wanaagsan u gudato. berri qofkaasu waxay ku aragtaa qof wanaagsan inaad tahay shaqada shaqo ka wanaagsan ayaad helaysaa ay kuu gudbinaysaa. laakiin haddaad tahay qof hagareey ah qof xaasid ku jiro horumar la ma gaaraysid ilaa taxad ayaad joogaysaa. taxad adaa isdhigay cid ku dhigtay ma jirto ma fahantay. haddaad allahaaga tala saarata aad tahay qof qalbi wanaagsan aad tahay qof shaqadeeda u daacada waxaa laga yaabaa shaqada meesha ugu sarreysa inaad tagto nolosha ugu sarreysa inaad tagto hadhacaysa. laakiin haddaad tahay qof xasada qof yacni qofkan hantida le xataa aan u quurin waxba quurin haddaad tahay ma gaaraysid hadafkaaga iyo horumarkaaga. maanta haddii ilaahay ku calfo 10 giney haddii ilaahay ku calfo aad heshid 10 giney ama 10 doolar wixii ilaahay ku calfo allahaada uga mahadnaq alxamdulillah shukri waxay kuula mid noqonaysaa 10kaas kun ood ilaahay uga mahadnaqday 10 kun oo doolar ilaahay ayaa kuu barkeeya. laakiin haddaadan uga mahadnaqin qofkii aad u shaqaysay oo 10 kun ku siisay 10 shilin ku siisay aad tiraa lacag ma isiisay aad tiraaho waxay ku tiraysaa 10 kun oo doolar xataa hadday ku siiso waxba kuma tarto. laakiin haddaad allahaaga ugu shukriso alxamdulillah ilaahay wuxuu ii calfay waan helay aad tiraaho way ku barakoobaysaa. waxaad ku seexanaysaa qalbi wanaagsan oo neg oo qabooban. waxaad noqonaysaa qof habiye qoyar socda aana laga dareemin dhibaato duruuf walwal ku jirta mar walbo deganaansho habi nolol adduunyo iyo nolol aakhiraba ku jirtaad noqonaysaa. laakiin haddaad tahay kan waa igu yaryahay kan baasaan waay kan saan waay qofkaan ka doon la duruuf iyo dhibaato adaa isu horseeday. ha isu horseedin dhibaatada. allahaaga tala saaro naftaada ku kalsoonow si aad iyo aad ugu kalsoonow. u shaqo tag meesha aad ku calfo jaranjarta koowaad aad furtay jaranjarta labaad berriyaad furaysaa
jaranjarta saddexaad markaad korto jaranjarta ugu sarreysa ood noqoto yacni qof meeshii ay ugu fiicneed aad noqoto ha yasin dadka ha ku yaqyaqsanin ha la yaabin dadka daruufaysan u fidi naxariis gacanta u taag qofka dhibaataysan isku day inaad caawiso haddaadan isku dayin wixii shalay lagu dhiibtay waxa adiga malihid waa lagu dhiibtay sababto adduunkaba waxaad ka tahay safar waxaa ku taagan tigid baa lagu goynaya maalin maalmaha kamida adoon walba u haynin shaqadaada ku guda jira waqtigaaga soo dhammaanaya ha ku yaqyaqsanin hadhihin qofka hebley mee shaqaysata hadhihin mee yeesha hadhihin gacmo naxariis leh qalbi naxariis leh indha naxariis lagu fiiri u naxariiso si aad ugu naxariisato ilaahayna wuu kugu naxariisanaya laakiin haddaad ku yaqyaqsato laa waad guuldaraysatay adduunna waad guuldaraysatay aakhirana waad guuldarsatay ilaahay wuxuu dhahay isu naxariista aan idiin naxariistee ma garateen marka waxaa jirta in bahalkii ay tahay waddada guusha naxariista badanna ay ku jirto kalsoonidana ay ku jirto hadafkaaga naftaada aad ku kalsoontahana aad ku guulgaarayso haddii lagaaga sheekeeyo arrimahaaga danahaaga aad qaadatid waxba yaan lagaaga sheekeynin adiga danahaaga naftaada uga sheekay la sheekaysa naftaada waa lala sheekaysta naftaada la fariisa naftaada maxaasaan walaal macaani diintaadana kuwada adkaaw waxaan haysanaa diinu qurux badan waxaan haysanaa diin naxariisa waxaan haysanaa diin nimco ah ilaahay noogu nimceeyey alxamdulilah shukri ilaaha mahadleh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsantihiin like share comment